السلام عليكم. qisadani waa qiso cajiib ah waxayna dhex martay wiil iyo hooyadiis. wiil ayaa waxa uu hooyadii weydiiyey, hooyo maxaad la ilmaysaa? waxayna ugu jawaabtay, hooyo waxaan ahay dumar. wiilkii yaraa waxa uu hooyadiisa ku yidhi, ma aanan fahmin hooyo ee ii caddee. laabta intay ku qabataa waxay ku tidhi, hooyo weligaa fahmi maysid ee iska daa. intaas kuma uusan joogsan, wiilkii waxa u tegey aabbihii wuxuuna ku yidhi, aabbo hooyaday maxay sabab la'aan u ilmaysaa? aabbiya wuxuu ugu jawaabay, dhammaan dumarka oo dhan waxay u ilmeeyaan sabab la'aan. wiilkii waa weynaaday, welina waxaa ku taagan su'aashii ahayd, hooyaday maxay sabab la'aan u ilmaysaa? ugu dambayntii waxaa u tegay nin xakiim oo aad u caqli badanaa, wuxuuna ku yidhi, waxaan ku weydiinayaa su'aal, waxaan doonayaa jawaabteeda markaasi. ninkii xakiimka waxa uu yidhi, haddaba soo daa su'aashaada. wiilkii waxa uu weydiiyey, dumarka maxay sabab la'aan u ilmeeyaan? wuxuuna ku jawaabay, dumarka ilaahay wuxuu u suubiyey 2 garbood si ay ugu dulqaadato culayska adduunyada, wuxuuna u suubiyey 2 gacmood oo jilicsan naxariisna badan si ay raaxo ugu dareento. waxa uu kaloo Rabbi siiyey awoodda gudaha si ay ugu dulqaadato dhalmada. waxay kaloo dulqaadataa ilmaheeda marka ay yar yihiin iyo marka ay weynaadaan iyo marka ay ku caasiyaan. ilaahay caasi nagama dhige. waxa uu kaloo Rabbi siiyey awood ay ugu dulqaadato culays walba oo reerkeeda ku yimaada. waxay wax walba u huraan ilaalinta reerkooda iyo jacaylka ilmaheeda markaasi ay u hayso waa midaan dhammaad lahayn. haddii ilmaheeda qalbiga ka dhaawacaan kadibna ay u soo laabtaan iyadoo ilmaynayso, xanuunkii horena aan xasuusan ayay laabta ku qabataa. runaantii ma awood inaan soo koobo, balse meesha keliya ay ka jilicsan yihiin ayaa waxay tahay middaasi inay sabab la'aan u ilmeeyaan dumarka oo dhan. xiriirka qarsoon ee adiga iyo iyada idinka dhexeeyo waxa uu go'aana markay adduunyada ka tagto, balse waxa jirka iyo maskaxdaada ka dhex guuxayo xasuus joogto ah ku noqdo bini'aadamnimadeeda qiimaha badan. alla hooyooyinkeenna ka dhig kuwa ka mid ah xurlacaynta jannada iyo hooyooyinka muslimiinta oo dhan. allaahumma aamiin. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkani like saar siina gaarsii saaxiibadaada. haddii aad nagu cusub tahayna inagu soo biir oo rukumo janalka si ay kuu soo gaardaan muuqaalada aynu soo dhigno mar kasta. intaynu ku kulmi doono kani muuqaalkiis xiga fii amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.